war degdega daawadayaal Soomaaliya oo qarka u saaran loolan la mid ah midkii bariga dhexe iyo Israa'iil iyo Turkiga oo ku loolamayo gudaha Soomaaliya. Haddaba maxaa ka jira in Turkigu go'aamiyay gantaalada ridada dheer inuu ka rido Soomaaliya? Dhinaca kale tana Israa'iil arrintaas ay si adag uga hortimaaday. Barnaamijkan ayaan rabaa inaan idinku la wadaago. Qodobada kale waxaa ka mid noqon doono dhaqdhaqaaqa Puntland ka soconayo maamulka Puntland oo hanjabaad adag ka soo saaray qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ciidamada iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wada deegaanada maamulkaas. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo tuutaha militari xiranayo. Madaxweynihii hore ee Puntland Farol isaguna afka furtay. Barnaamijkan ayaan rabaa inaan idinku la wadaago. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixinadeena qayb ka noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyay kulamada siyaasadeed ee ka soconayo magaalada Muqdisho, wadahadallada foolka ah ee u bilaabanayo madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah. soo dhawaada saaxiibayaal, haddii aad saaxiib nagu cusub nagu soo bir muuqaalka like saar aragtada waxaan dhisaysaan ugu reeb qaybta hoose faalada dadweynaha aynu ku bilowno wararkeena. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay aad uga walaacsan tahay loolanka ka soconayo gudaha Soomaaliya ee ay isku hayaan maamulka gumeysiga iyo sidoo kale dowladda waddanka Turkiga oo ah dowlad mashaariicyo waaweyn ka hirgelisay gudaha Soomaaliya. sida ay xoguhu sheegayaan, dowladda Turkiga ayaa waxay ka fikiraysaa in gantaalada ridada dheer in ay ka tijaabiso Soomaaliya. gantaaladeeda oo si casri ah loo sameeyay ayaa waxa ay qorsheedu yahay in iyaga oo samaysan ay keento magaalada Muqdisho, kadibna ay tijaabadiisa ay ka dhacdo badda cas ama badweynta Hindiya. haddaba xoguhu waxa ay tilmaamayaan in arrintan durba walaac xooggan ay ka muujisay Israa'iil, iyada oo ka digtay tallaabada dhaqdhaqaaqa ee ay wado dowladda waddanka Turkiga ee gudaha gobolka Geeska Afrika, taasi oo ay ku sheegtay in ay ka hortegayso tallaabo walba oo halis ku ah amniga qarankeeda, sida Israa'iil ay sheegtay iyadoo walaac xooggan muujisay. haddaba arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay mid la mid ah loolankii bariga dhexe oo Israa'iil iyo sidoo kale xulafadeedu ay kula dirirayeen dowladaha qubadda leh ee muslimiinta ah. hadda Israa'iil waxa ay marin ka heshay Somaliland oo u ogolaatay heshiis dhinaca difaaca badda oo ay Israa'iil ku imaanayso magaalada Berbera. haddaba arrintan waxaa loo arkayaa in ay horseedi karto in mar kale Israa'iil iyo Turkiga oo dhowr mar isku hanjabay in qubaddoodu ay isku wajahaan gudaha Soomaaliya. haddaba maxay ka dhigan tahay loolanka cusub ee ay dhaxda u gashay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale walaaca xooggan ee laga muujinayo gantaalada ridada dheer ee uu Turkigu ka tijaabinayo Soomaaliya oo dulbadegnin ay ka soo saartay dowladda maamulka gumeysiga Yahuudda? arrintaada ku aadan hoos ayaa nugu reebi kartaa. Puntland Soomaaliya xaaladda ka taagan weli aad ayay u cakiran tahay. waxaa lagu soo waramayaa in maamulka Puntland uu digniintii ugu dambeysay siiyey ciidamada daacad u ah dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan qayb ka mid ah deegaanada maamulkaasi. wasiirka warfaafinta maamulka Puntland oo hadlay ayaa afka furtay, waxaana uu si adag kaga hadlay xaaladda ka taagan deegaanada maamulka Puntland. waxa uu wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka Puntland uu shaaca ka qaaday in ay Puntland ka xun tahay dhaqdhaqaaqa dowladda federaalka ay ka wado deegaanadeeda. dowladda ayaa ay ku eedeysay in aanay ixtiraamaynin marka la fiiriyo dastuurka dalka ee heshiiska lagu yahay. eeda kale oo waaweyn ayaa ay Puntland u jeedisay dowladda dhexe ee Soomaaliya. haddaba warka kasoo yiri wasiirka warfaafinta Puntland qaybta dambe ee faalada ayaa rabaa inaan idinkula wadaago. laakiin madaxweynaha Puntland, madaxweynihii hore ee Puntland Farol, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo dhammaan siyaasiyiinta Puntland waxay u muuqdaan markan inay meel uga soo wada jeesanayaan kooxaha mucaaradka ah ee fadhigoodu yahay magaalada Garowe, laakiin la aaminsan yahay inay taageero ka helayaan dowladda federaaliga ah. haddaba isku soo wada duubay xaaladda waa mid alow sahal ah, dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo iska soo horjeedo ayaana Garowe ka soconayo. wixii kusoo kordha macluumaadka xaaladda Garowena barnaamijyadeena iyo wararkeena xiga ayaa ku daawan doontaan. magaalada Muqdisho waxaa ka soconayo abaabulka iyo soo diyaarinta kulamo wadahadal foolka fool ah oo dhex mari doona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xoogagga mucaaradka ee ka soo horjeedo.
sidaynu ka soo xignay saraakiil lagu kalsoon yahay wadahadalladan ayaa bilaaban doona toddobaadyada soo aadan iyadoo si gaar ah loogu koofeyn doono arrimaha ay isku khilaafsan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale xoogga mucaaradka. Wadahadalladan ayaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha isku maandhaafsan yihiin madaxweyne xasan sheekh iyo sidoo kale xoogga mucaaradka. haddaba waxaa gadaal ka riixaya wakiilada beesha caalamka oo ku khasbaya madaxweynuhu inuu googasha wadahadalka soo fadhiisto. wixii kusoo kordhana wararkeena iyo macluumaadyadeena xiga ayaa kaga bogan doontaan insha allah. bismillahi raxmaani raxiim. madaxda dowladda heerarkeeda kala duwan ee musharaxa liibaan, salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, dhammaantiin waa salaamantiin. galab wanaagsan. waa idin mahad celinayaa marka hore soo dhoweynta, weliba xilli roob da'ayo oo la socodkii iyo hawsha aysan fiicnayn oo aad timaadeen airboortka noogu timaadeen. aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa inta hadda joogta goobta iyo inta bannaanka joogta iyo inta na maqlaysa dhammaantiin aad iyo aad baa mahadsantiin. waxaan leeyahay salaantiinna iyo soo dhoweyntiinna iyo farxadda aad nala wadaagteen intoo kale aan idin qabnaa. deegaankii aan ka nimid, radii baan ka nimid, aad deegaankaad nagu ogeydeen. nabad iyo barwaaqo iyo doorasho iyo horumar baa ka socda. iyo markii si kale lagu daro is-ogol iyo isu tanasul iyo israbitaan. rag badan saaxiibanahay oo mararka qaar kabaha la isaga istaagaa meesha angaabta halkaas ugu nimide. siyaasadda waxay leedahay barmar kabta la isaga istaago, wax la isu qabaana ma jiraan. marka cayaartii baa soo dhamaatay. maxay ahayd cadal iska dhigo. cayaartii hore waa soo dhamaatay. odatinimo iyo inaan wax maslaxo iyo inaan wax xalliyo waxaan ahayn gacan lagu amaayo. wixii kale ma rabo inaan rag hadda alaabta weli bahasha sii jecel aan kurba geliye. wax kale la qarinaya dibay jiraan la sheegi maayo. waa mahadsan tihiin. allah idin sharfo. mar kale fadhiyo badan iyo sheekaan sugu imaanaynaa. muhiimaddu waxay tahay wixii intii xilka la hayay iyo intii lagu jiray loolanka saaxiibada iyo siyaasiyiinta asxaabta dhex maray waxaa dhalay hadda iyo bog cusub iyo inaan hore u soconno. midda soomaaliyana aan hore u wada wadno. midda reer galmudugna waa xalisan tahay. xal bay ku dhamaatay. xal bay ku dhamaanaysaa gurigeeda iyadoo qurxoon oo sharaf leh insha allahu tacaala. taas meelo kalena waa lagu hadli doonaa. galabta soo dhoweynta iyo waxay noo joogtaa ilahay idinkiisu mahad celinta iyo inaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay sida naloo soo dhoweeyey iyo sida aan qalbiga wanaagana noo tusay. allah idin sharfo. fadhiyo kale aan sugu imaanaynaa. waxyaaba badan baan isdhaafsanaynaa insha allah. midda guudna waa ka talinaynaa, midda gaar kalena waa ka talinaynaa insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.